السلام عليكم نبض ينحرس كركينا هاتو أدبان دي سلامية كسو دوادا برنامج كينا تنبالكن لشا إن قضب كان وامد عندون إيو إنان قصو عجيبة إذا قلو وداغو قصدنا وحي موجينيسا markii si loo eego dunidan waxa ay tahay qisadani waa riyo qaab ahaan qiso u dhisan ninba hadda ka hor inuu yimid wuxuuna ku yiri xalay waxaan ku riyooday arin la yaab leh wuxuu yiri waxaan ku riyooday arin mucjiso ah oo hurdadii iga qastay oo saskii aan ka qaaday baan ilaa hadda la taaganahay waxaad ku riyootay buu ku yiri qofkii wuxuu waxaan ku riyooday anigoo libaax u yeeriyanayo libaaxii anigoo ka cararaya oo doonaya inaan libaaxaasi ka badbaado baan god ku dhacay godkii markaan ku dhacay intaanan salka godka galin meel xariga ayaan dhab qabsaday xarigii markaan qabsaday haddaan hoos eegay ama aan fiiriyay maase lugeelay iyo abeesooyin iyo adduun baaba iyaguna halkii ugu sugaya kor haddaan eegayna libaaxii aarkii baa taagan anigoo markaas ka walbahaarsan haddaan kor u soo baxo inuu libaax qaado cuno haddaan hoos ku dhacana maase lugolaydan iyo abeesooyinkan iyo xayawaanka kale ay cunaan baan siri haddayba saa sheekadu tahay bal xarigan uun iska hayso in muddo ah kolay aan rajeeyo bal inuu libaaxu meesha ka tago hase yeeshee lamood noqonsa weyday ninkiioo markaasi rafaadsan oo kacakufayo yaaban oo wuxuu sameeya garan la baa xarigii uu haystay laftigiisii jiir ama dooli uu bilaabay inuu midna gees ka cuno midna gees ka cuno bal hal gees baa waroonayd marka geeska midigta dooli ama jiir cad baa cunaya geeska bidixdana dooli ama jiir madow baa cunaya waxay bilaabeen xarigii cunaan markaas walbahaarkii ku sii kordhay dib u fiiri xaaladda uu ku sugan yahay haddii uu kor u baxo aarkii libaax ahaabaa taagan oo libaax gaajo ay hayso dee waa boqor duureede ama ina dugaage wuxuu cafinayaan jirin hoosna hadduu u dhaco maase luguleydii masiibooyinkii masaskii waaweynaa baa halkaas ku cunaya haddii uu sii joogi lahaana ma sii joogi karo xariggii yaraa u haystay halkana jiir ama doole ka cunaya dhankana oo ka cunaya iyadoo arrintu saasi ugu cakiran tahay oo uu walbahaarsan yahay wuxuu sameeyana uu garan la oo naftii la yaaban buu darbigii meel ka mid ah qoday gacantu la helay darbigii markii uu gacanta la helay meeshii waxaa ka soo burqaday malab macaankiisa aan erey lagu qiyaasi karin hal mar buu dhadhamiyey macaankiisii uuba dhurtay war balaaba jirta war ninkii xaaladda cakiran ku sugnaa maaha miya oo sookii libaaxu soo eriyay dusha taagan godka oo sootii maasalogeyada iyo masas kale hoosta ay ku sugayaan oo sootii xarigii yaraa ee uu ku badbaadi lahaa jiirkan madow ama dooligan madow iyo kan cad ay cunayaan marka qisada haddaynu dib ugu noqono marka fasiraadeedii waa fasiraad runaantii si wanaagsan uga hadlaysa xaaladda aadamuhu ku sugan yahay marka riya fasirihii baa marka fasiraya sheekadii waxa uu yiri horta wuxuu yiri libaaxa ku eryanayay ee ku daba ordayay aad ka cabsanaysid
wax kala maahane waa malakumudkii buu waa malakumudkii nafta ka qaadi lahaa oo waa ku sugayaa haye xarigana ka waran buu yiri sheekhow hadaba fasiraadka ku fiina xarigana waa cimrigaaga intuu leeyahay oo jiirkan ama dooligan madow iyo dooligan cadna maxay hayeen biro iga cunay xariga waa maalintii habeenkii oo cimrigaaga soo koobaya inaan maanta bari weyn ka weynaa barina bari dambaynu ka weynahay oo cimrigeena uu sii guraya as long aan hal maalin sii noolaano waxaynu u dhownahay geerida iyo godka hoosna waa wixii laga cabsi qabay qofka hadduu camalkiisu xumaado soo abeesooyin iyo balaayooyin qabriga uguma soo booqdaan bal intaa gartay malabkan macaano muxuu hawiri waa dunidii wiir waa dunidii weeye طبعا dunida wax kasta inay hilmaamsiisa Soomaa in hadaynu ahaan lahayn dad la socda in malagu daba taagan yahay wax kasta xumaan sameeyno waynu islaalin lahayn hadaynu nahay dad xasuusan in cimrigeenu isguraya markasta oo maanta bari aynu godka uga dhownahay oo maalinta ka dambaysa aynu geerida uga dhownahay oo saa maalintii habeenkii cimrigeena u soo yareynayaan oo macnaha laba jir marka afar jir ka dhigan afar jirna labaatan jirna soddon jirna konton jirna toddobaatan jir oo dib ku celinaynin oo cimrigaaga isku rayo akharna marka godka la galo wax badan dad fara badan ay ku sugayso haddana laakiin malabkii ilaahay macaana adduunkii ayaan hilmaamsiiyey marka sheekadu marka si u fiirisid siba ula yaabaysaa laakiin markii la fasiro macnay noo sameynaysaa marka inaynu xasuusanaa wanaagsan in malakul mawtku markasta uu ina daba taagay waxaad arkaysaa in xilligii nabigeena maxamed aan naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laba ayuu aad uga ducaysan jiray waa mawtul qaflaha iyo gaajada anaha geeridu waa xaq laakiin qofku markuu si kama ah oo intuu hadda ka soo tagay hebel waa meed lagu yiraahdo waad u qaracmaysaa Soomaa laakiin waxay naga maqlaan markasta hilmaamnaa oo inaan ilowna ninkan ama malagan nafta qaadaya uu ku daba taagay isagu xilligii loogu amray mas daqiiqadna kuma daray daqiiqadna kuma dhaweeyay ko isaga ugu dambeyn iska qaadi doono Soomaa marka waa inaad qofku ogaanaa marka qisooyinka marka laga sheekeynayo inaan ku wanaqaano سلمة قصدي كله أو يدنا كتسيسا دنيا معان كذا كدرية نن عاقلة وحربين ويل كيسة لا تدارمو وحكيري أبو بالطلا يتسأله ونحسن يكتك تتيا الله قوة ما دام قاعد حلو وحكيري لو ما كسينيا حدد الدنيا ذا كرر تدبو كيري معان كذي الراحة ذي النبعة أنا وجوني سيبان كوانيه حتى عبسك قبت آخر يجود كاس لقلي يو إن عذابتاس لمطيسنا يسأل ويدين تقو قبرجة كنعيس إذا نسكلم كوان يا بكير وحكير هدي أدوني سيد إن الدنيا معان كذا كباشا شو صد أري الضمان استعماله وأنها كوجرتو وحكير مركز تك أراس ذي حفلة ذا يعني لها قرحانة نرت عكاركي ضاو وأنا أقولها مركز أروس قيب كشيء ما حفلة ما مال مناسبة وإله ما أقول أرسل قف كود كسر اللي بس وناكسين هي متعلنسين هي كلا على سكين مدن دوني ده يصير شرع نساء مركز ضدك أنت بدن دوني ده شعلي وضدك مالها دوني ده سيق قرح يسق قيب قالوا مالين كستجناد أو تشوق أو بعشالة أو هدينا تشبين دا كشرة تحسوا تاويل هو هذا الدنيا رجع كله لكن وحده هذا آخرة رجع كله ده حسورين حبالها أما قبورة فوقه بس نسقوا في لمبة تيجي كشلة وده السعودية سؤالك كمود الجيران بدك لو إنه أجنحي مركز تينو قف لنتير رع نوجي جنازة من كنت كنا قبر كان تقولنا وعن أنت إنك لن علوم إنه كس وحنا سؤالك إنك قلت كي أفرت مترها يقيت كي راعي عدا اللي بحر يقف كهل كان وقصة تقني مركا
marka qaarkood inaynu isbaraarujinno inaan dunida keliya ka hadal baa fiican. way jiraan barnaamijyo fara badan oo motivation leh oo dunida inaynu wax ka qabsanno aynu u soo jeedino, laakiin marka qaarkoodna inaynu aakhira is-xasuusino iyo waxa wanaaga uu yahay iyo waxaan dunida u joogno reasonkan loo abuuray ilaahay uu inoo abuuray waxay tahay inaan caabudno. waana shay wanaagsan in is-xasuusino wixii aan khalday ama tabintaydu hadday iga khaldantay, khaladkaas aniga shaydaan baa iska leh, wixii aan saxay iga faa'iidaana allah igu beegay. waad mahadsantihiin, naxariis iyo nabadgelyo korkiina ahaato. intaas ayaan idinkaga tegaya.